barashadu aqoon taxana weeyani tagtadii ku dhaaftaba waxba laga tixraacaye arrintii markaa taagan waa lala tacaalaye timadada markaa maqanna waa aynad u toogayso hawjadkiyo tilmaamaha haddaan idin tusaalayno tayantiyo tigsiga Puntland taabaqaad noqoyay tayantiyo tigsiga Puntland taabaqaad noqoyay tubta toosan iyo guusha waa loo tartamayaaye tallaabooyinkana qaadnayba حكومتنا تاجروا آلس كرم تاجنو تفرارق لما دوني توقع يشا تبتتوسن يوكوشا والو ترتمايا تلابوين كان قادنيبا حكومتنا تاجروا آلس كرم تاجنو تفرارق لما دوني توقع يشا reer baargaal qaybaheeda kala gedisan oo maantay nagala soo qayb galay fadhiga 15aad ee degmada baargaal golaha deegaanka degmada baargaal aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waqtigiina qaaliga sidaad noogu hurteen waxay cadeynaysaa inaad diyaar u tihiin danaha deegaanka kan iyo dadkii aad wax u dhiibateen bal inaad dhageysataan intii aad kala maqnaydeen oo ay shaqadii loo dirsaday bal wixii ka qabsoomay waxaan ka qabsoomay inay hortiina isa soo taagaan ilaahay mahaduli aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin mudanayaal maanta oo taariikhdu tahay 23 bishii 3aad 2022 waxaan noo furmayaa kalfadhiga golaha deegaanka degmada baargaal oo dhowr jeer naga dib dhacay sharciguna qabo in dib loo dhigo ama hore loo soo dhigo iyadoo golaha deegaanku uu leeyahay laba kalfadhi oo la yiraahdo kalfadhi caadi ah iyo midaan caadi ahayn mudanayaal 22 xildhibaan ayaa golaha deegaanka degmada baargaal u yeegleesheen nabadoonadii dadka dhaariyay baa fadhiya 22 xildhibaan waxa hadda inoo fadhiya 14 waa laga yaabaa qaar fasax nagaga maqan oo magaalada hawlka soo qabanaya laakiin mar haddii xildhibaanku magaalada joogo tiradu ku jira laba xildhibaan oo bedel ah baa jira oo aan wali dhaarin oo mid dhawaantana soo gaaray xildhibaanada inta kale to duruufo iyo fasaxyo bay ku kala maqan yihiin oo degmada ma joogaan xildhibaan iska maqnaada ma jiro fasax uu maamulku siiyay ama afaynkoodu siiyay buu ku maqnaadaa ilaahay mahadi weeye inaad maantay aanu idin warrano noona dhig raarixisaan dhowrka daqiiqo halkan aan taaganahay anigoo ku soo dhaweyn doona isuduwaha dawladaha hoose ee gobolka Gardafuul mudane Siciid isuduwaheena runtii oo hawlkarka dhawaanta la magacaabay golaha deegaanka degmada baargaal intii aad yagleesheen hawlaha uu qabtay lama soo koobi karo waa dhici ka hawlo badan oo shacabkii iyo dadka shaqada u dirsaday aanay arag oo isleeyihiin dhaliilayaan laakiin maalin qorraxi soo baxdo jimcaha Allah ka dhigay oo aanay shaqo qaban haba yaratay ma jiro rugaha caafimaadka oo hadda ay gurigan taariikhda ah ama rugta caafimaadka taariikhda ee baargaal kan taageer oo hadda shaqo ku socoto oo 200 iyo maxaan ku yiraahdaa deerkoodii la dhisi doono oo $30,000 ku kici doona oo shacab iyo hay'adaha in ka soo ururinay marka laga yimaado rugtan caafimaad ee weyn ee ilaahay baa weyn ee taariikhiga ee degmada baargaal laga yagleelay oo shacabka iyo maamulkoodu ka yagleeleen oo ah wax taariikhda galay Gardafuul iyo baargaal ba aan wali hore loo arag rugta caafimaadka ee degmada Qorraxaad deegaanka Qorraxaad oo aynu bulshada reer baargaal ay dhistay iyo maamulkoodu dabadeedna furitaankii rugta caafimaadka aynu dadaal badan ku bixinay mahad ilaahigay maantay wuxuu yahay rug caafimaad oo shaqeysa oo shaqaale loo tababaray qalab ku filan la keenay maamulkeenu wuxuu sameeyay xaafadaha la yiraahdo baargaal oo ka kooban 6 xaafadood oo kala ah waa beri cirirood sanduubo dilan gibil iyo barfisco mid waliba wuxuu leeyahay gudoomiye ku xigeen khasnaji iyo guddi inta badan xubnaha halkan fadhiya
oo hadda fadhiya ayay ka mid yihiin mas-uuliyiintii xaafadahaas inoo hogaaminaya waa xaafadaha waa guddiga aynu ku nasannay oo nadaafad iyo maxaan ku idhahdaa soo celinta bilicda iyo ilaalinta deegaanka hadday dhuxul tahay hadday quraca qaraacidiista tahay hadday maxaan ku idha waxaas oo dhan tahay gabdhaha hooyooyinka ah ee sharafta leh iyagoo guryihii ka shaqaynaya ayay dhinac walba ka shaqaynayaan waa u mahad celinayaan taageer sidoo kaleeto jecel iyo xankooki baanu ka samaynay laba xaafadood oo la kala yidhaahdo guddoomiyay leeyihiin guddoomiye ku-xigeen bay leeyihiin annagoo qaadigii deegaankaas sheekh warsamo yuusuf leeya guddoomiye uga dhignay si dadku ay ugu soo joogsadaan oo danaha deegaanka si u fulaan nin dhakhtarana uga dhignay oo cali xareed la yidhaahdo guddoomiye ku-xigeen qoraxaad ilaa iyo hadda hal guddi bay noo tahay oo hal xaafada waa jecel lahay mustaqbalka inaanu xaralaaye iyo ka dhigno meesha la yidhaahdo jeceel waadi khayr wax yar baa nooga dhiman oo odayaashii aanu hal mar aanu shir wada gallay waxaanu jecel lahay insha allahu tacaala inaanu yag leelo guddi hadda guddi kumeel gaara nooga shaqeeya oo guddoomiye kumeel gaara leh 47 xubnood ayay isku yihiin guddiyadaasi oo miyi magaalo baadiye dhul xaaluf ka socday xijiyo soodinta degmada baargaal oo ay maxaan ku idhaahdaa dhinaca koonfureed ama qorax ka dhac ugu xigto xuurowyo oo buqagteeda ah dhinaca kana degmada bareeda saddex geedlaho ilaa fogoolaanu soo taabanay takhdiid baanu ka samaynay waxay noo ka diyaarsan inaynu mar dhow aynu ku koobno buugga degmada oo aan halkan insha Allah ku sheegi doono layraynta iyo bilicda baa maamulkeenu qabtay annagoo soo yibino 140 guluub aan markaanu aragnay barfisko inay xoogay ay bilicdi sidii la rabay ay aanay ahayn maamulkeenu wuxuu yag leelay layrayn iyo qurxin waa uga mahad celinayaa 40 xabo oo kamid ah waxa naga bixiyay ganacsatada aad iyo aad bay u mahadsan yihiin inta kaleetana xogayaha degmadaan u xilsaaray wuuna ku guuleystay walow guluubadii markii dambe xoogay ay naga daciifeen waxaanu maamulkiinu yag leelay buugga la yiraahdo xog ururinta xogta degmada oo 5 sano mar la ururiyo oo layna ka caawinay oo maadaama kharashkiisu badan yahay wasaaradda arrimaha gudaha gobolka hay'adda la yiraahdo diakooniya NGO-ga la yiraahdo Bunsa ayna ka caawineen khubaro laynoo keenay guddi u xilsaaray wuxuu gamarayaa gabagabo mar dhowna ilaahay dankii qof walba mobilkiisa ugu soo tuuri doonaa 5 sano soo socda wixii nafteenu gaadho waa laga baxay maantay haddii la rabo degmo in wax laga qabto buu noo socdo kaleeto ceelka dugsiga sare ee maxaan ku idhahdaa taageer oo isagana iska wax u qabso lagu dhisay oo hadda inoo dhamaanaya maalmaha kana farta laga jaray biidnillahi tacaala waxay noo qorshaysan sanadka 2022 wadooyinka gambaduufle ama gaxandha oo aynu guddi u saari doono dhulkaanu booqanay kamid ah oo aynu rabno inaynu furro si deegaankeenu u helo dhaqdhaqaaq inta hadda ka badan wadooyinka deegaan soo galay markasta ay ku bataan waa markasta ay dakhligu bato waxaanu rabnaa inaynu u geyno wadada hursale ka timaada hurtala tagta oo mudiye ka timaada sahan baanu ku kala bixinay waxaan rabnaa insha Allah shirku markuu dhamaado baan kelmad ka oran doonaa in aan guddi u saaro oo aan maxaan ku idhaahdaa mid lagu soo go'aamiyo labada wado kii la sameyn lahaa walow ay dhowdahay gambaduufle ayna hadda 60% haysato taageero ah gambaduufle in la furo oo la geeyo berkada nabadoon Siciid Ismaan Muuse waxaanu ku guuleysanay barnaamijka la yiraahdo JBLG oo 20 sano aynu daba joognay oo ah barnaamijka degmooyinku ku horumareen oo laamiyada Boosaaso Qardho dalkacayo Garoowe laamiyada la dhisay aad aragteen barnaamijkaas laga dhisay UN-ka bixiya dawladda hoos degmada Baargaal 15% baa laga rabaa waxa ka soo shaqeeyay gobolka oo isugu hadayna kala joogo waxa ka soo shaqeeyay barasaabka waxa ka soo shaqeeyay xildhibaan Abu Baraa waxa ka soo shaqeeyay mas'uuliyiinta madaxweynuhu ugu horeeyo in Baargaal laga qayb geliyo JBLG-ga barnaamijka la yiraahdo caqabadaha degmada soo maray waxa kamid ah coronavirus oo adduunka oo dhan caqabad xataa cibaadadii u soo dhigtay oo bareeg u maaragtay u diiday in ummadii ay isu timaado waxa kamid ah dhaqaale burburka dalka ku dhacay gaar ahaan Puntland oo dhaqaalihiisii aqoonyahanka dhaqaaluhu ay leeyihiin boqolkiiba dhowr iyo 30 baa la waayay dhaqaalihii Puntland oo ganacsatadii iyo shaqaalihii dadkii maxaan ku idhaahdaa dan yarta ahaa ay khatar galeen waxa ku dhacay degmada caqabadaha soo maray kamid ah shilin Soomaaliga oo istaagay oo inaga bishii 8 2021 inoo geystay dhaawac aad iyo aad u weyn bishaas $30,000 ayaa 30 milyan ayaa degmadeenu iyadoo dakhligu aad u yaraa ina ka khasaaray oo hadda jawaan inoo ku torano halkan xoogayaha iyo inoo taal maxaan ku idhahdaa xafiiska xisaabaadka oo bishaas nagu gooyay mushaaraadkii shaqaalaha dawladda hoose kharashaadkii dhammaan bishaas waa nagu tagtay caqabadaha waxa kamid ah
dowladda federaalka ah iyo dowladda Puntland oo siyaasadadu ay si mugdi ugu jidhay waxay keentay in ay degmadii saamayso waxaanu ka shaqaynay dakhligeena oo bishii 6aad kowdeedii 2020 halkan markaanu xilka la wareegnay dakhliga degmadu miisaaniyadda marka la eego oo aanu samaynay 0% taagnaa 2021 maadaama uu yahay sanadka kaliya oo aanu dhamaysanay oo kii hore gabac iyo yagleelid iyo inaanu dokumentiga abuuro iyo aanu ku jiray sanadka 2021 dakhli iyo kharash wixii noo soo arooray halkan baa ka daawan kadhaan 144,584,000 ayaa inoo soo xirooday sanadka 2021 maadaama intaasi soo xirootay dawladdu waxay ku xisaabsantaa shilinka dalku uu leeyahay hadhow haddii la rabo dollar loo bedelo laakiin dawladdu dollar marka hore ma qorato waa soo bedeli doonaa waxa dhacay haddaba 200 baan leeyahay 81,072 ayay isku noqotay waa tirada hoos ku qoran sanadka 2021 ma tahay miisaaniyadii saxda ahayd ee 2021 layna ka rabay ma tahay maya waxa layna ka rabay inta horta marka dollar loo bedelo maadaama hadda dollar lagu shaqeynayo waa $7,000 sanadka 2021 $7,000 oo ciidanku 55% leeyihiin marka laga jaro oo iyada nafkeedu de bishii marka la yiraahdo layna ka rabo $14,000 miisaaniyadeena waxa ku qoran bishii waxa layna ka rabaa sanadka waxa layna ka rabaa $14,000 $14,000 marka sanadkii layna ka rabo bishii waxay noqotaa $1,100 halka hadda ay tahay marka tan bil aad u qaybiso $263 waxay soo dhow iyo wax maxaan ku wali miisaaniyadii heerkii aynu rabnay inaynu soo taabanno ma dhowaa aniga farxad weyn bay tahay inaan markii ugu horeysay ka soo qayb galo kalfadhigii ugu horeeyay ee degmooyinka gobolka Gardafuul oo ka furmay maanta degmada Baargaal farxad bay tahay aad iyo aad baan u bogaadinayaa xildhibaanada ka soo qayb galay iyo guddiga fulinta oo shaqadan u ahaa laf dhabar waana insha Allah billahi kariim intuu socdana waa la sixi doonaa wixii makanaysa waxa weeye irira iyo wixii hawl oo ku dhex jira insha Allah billahi kariim iyo isku toosintooda iyo isku dabaridka insha Allah billahi kariim kalfadhigu ilaa iyo 3 maalin ilaa 4 maalin baan jecelahay insha Allah inuu noo socdo wali waqtiga waxa jaangooytooda iska leh golaha deegaanka laakiin waxaan ka codsanayaa insha Allah inuu inahaas uu ka qaado sana hawlo badan oo kala taan u qabsano waxaan u sheegayaa wasaaradda arrimaha gudaha waan anigu maanta wakiil ugu ahay iyo gudoomiyaha gobolka Gardafuul inuu furmay kalfadhigii golaha deegaanka ee 15aad ee degmada Baargaal ma aha markii ugu horeysay ee maamulkan hadda jira iyo maamuladii ka horeeyay ee markasta Baargaal kalfadhigu waa ka qabsoomi jiray bulshaduna way ka soo qayb gali jirtay waana degmo xadaarad iyo maamul daadejinta aad iyo aad ugu sarreyso waxaan hadda cadeyn u ah inay 6 xaafadood ay ka kooban tahay degmada Baargaal ee leedahay 6 gudoomiye iyo ururo ka shaqeeya oo hawlaha hoose kala hawlgala maamulka degmada Baargaal arrintaasna waa ku bogaadinaya maamulka hadda talada haya waxaan kaloo bogaadinayaa nabadoonada degmada Baargaal oo si dhow iyo si dheer ula shaqeeya maamulka lana hawlgala markasta waxaan bogaadinayaa ganacsatada iyo isku duubnida reer Baargaal iyo shacabkooda ay qabaaniin mudane gudoomiye adigoo warkayga ka dhageysan doona saxaafadda iyo mudane wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Maxamed Damancad waxaan inii cadeynayaa oo shacabkuna ay markhaati ka yihiin xildhibaanaduna ay markhaati ka yihiin insha Allah wixii xisaabo ka soo baxdana dib ka soo sheegi doonaa inuu furmay maantay 23 bishii 3aad 2022 kalfadhigii golaha deegaanka ee degmada Baargaal ayaan rabaa insha Allah billahi kariim inaan ku wada shaqeyno wasaaradda arrimaha gudaha shaqada ka socota degmada Baargaal waa shaqadii la inii idmaday shacab iyo dawladbana waxa weeye inaad isku duubnaataan maamulna waa waxa weeye wax lagu heli karaa insha Allah dardaarankaygu inta ayuu ka kooban yahay barnaamijka GBJ-da waxa weeye qaybteena waa ka qaadan doonaa hay'aduhu way noo iman doonaan wax kasta waxay ku xiran yihiin wada shaqeynta waliba wada shaqeynta ugu horeysa inay dhex martaa xildhibaanada golaha deegaanka ee sharafta leh ee reer Baargaal ee doorteen iyo madaxdooda fulinta aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa isku duubnidooda iyo wada shaqeyntooda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سؤال كدب waxaan u malaynayaa warbixinta gudoomiyu suu noo sheegayna
aad bay noo qancishay oo ama hadday noqoto waxqabadka hadday noqoto dakhliga sanadkii 22 ka soo xorooday hadday noqoto siday u howlgaleen aad baan ugu noo qanciyey oo aad baan ugu qancsan inkastoo aan dhaqaalaha ka warhayno waddanku iska baabayay oo aan dhaqaali jirin waxbaa laga helaaba ma lahayn anigu waxbaa laga helaaba ma lahayn muddo kale waxaan u malaynayaa fadhiga kan ujeedadiisu wax yahay in kalfadhigu u furmo markhaanti baanu ka noqonnay inaan ogaano in kalfadhiga idiin furmo inaanu idinla subxaan bixino idinla galaan diyaar baanu u nahay waxaanna idin leenahay hawshiina garabkiinana allaha galo hawshiinana sida noogu sheegteen u qabta annana diyaar baanu idin lahay inaan wixii karaanka yagaa inaanu idinku garab galno aad baad nu mahadsantihi min amrihi yusra ninkii ilaahay ka cabsada waxaa ilaahay u fududaynayaa arrimihiisa oo dhan wuxuu uga dhigayaa fudayd haddaad rabto inaad adduunkaaga horumariso inagu saanu la soconno hadda waxaanu madaxdeenna maanta hoolkii waxaanu fadhinaa shirarka xildhibaanada ama dawladda hoose waxaanuna u dooranay inay deegaanka adduun iyo aakhiraba hormariyaan iyagoo ilaahay la kaashanaya sidoo kale way isla soconnaa ilaahay diintiisa lagu dhaartay waxaa loogu dhaartay dadka iyo dalka iyo diinta iyo dawladda intaba in ilaahay looga cabsanayo shuruucda saxdaana lagu dhaqayo sidaa darteed waxaa noo markaa suuban in aanu markaa ilaahay uga cabsanno waxaanu u dhaaranay waxaanu qaadnay sidoo kalena ayadda hadda sheegaya waxayna tusinaysaa ilaahay inaanu markaanu ka cabsanno inay wax kasii noo fududaanayaan shaqooyinkeennu noo fududaanayaan adduunkeennu fududaanayso dawladnimadeennu fududaanayso horumarkeennu fududaanayo dhaqaalaheennu fududaanayo wax kastii ay markaa horumar iyo markaa baraare noqonayaan iyo barwaaqo maamulka hadda furitaanka ee kolley baa nagu yartan markhaati baan ka nahay inaad furateen waxaan idiin rajaynaynaa guul shaqadana waa wada shaqaynayna weligeenba wixii karaanka iyo waajib bay nagu tabaran idin shaqaynayna idinkana guul baan idin rajaynaynaa duruufaha jira oo hadda waxa ugu weyn roob la-aan ogtiina degaamada soomaaliya oo dhan buu la qabaa waxaa la sheegayaa hadda degmooyinkeeni guuray waxna dhulka bay jiraan waxna dhulka biyalaan baa jira ilaahay gargaar ilaah baa le gargaar degdega ilahay baan ka rajaynaynaa dee sidaasaan rajaynaynaa halooda sheego asalaamu calaykum waraxmatullahi ayaad noo sheegteen waanu aqbilnay waana shaqayseen haddana waxaa la rabaa shaqada inaad meeshiina ka wadataan oo si fiican aada uga shaqaysaaniin salaan kadib alxamdulilaahi rabbilcaalamiin weeye maantay waxaa insha allah inoo furmaysaan horba u sheegay kalfadhigii tobnaad weeye 15 oo degmada baargaal ka furma bismillaahi raxmaan raxiim waxa weeye waa wax ilaahay loogu xamdinaqaa weeye inaynu insha allahu kalfadhiyaal yeelano degmadeennu insha allahu khalaastirno wixii insha alla jira oo walba istusno xildhibaanadeenna iyo guddoomiyahooduna inoo soo bandhigaaneen wixii insha allahu caqabada oo jira inaguna halkaa haddii aynu garab iyo gaashaan uga noqonno waa wax meesha kusoo jira waa wax la malaynayey guddoomiyaha degmada wuu ku mahadsan yahay mudane cabane shaqada uu qabtay meesha uu ka bilaabay waan ogeyn buuq khalliya loo dhiibay oo halkaa yaal oo dayn qaba been sheegi maayo maalintaan halkaa joognay dayn qabay ahayd degmadu haddana waxaan u malaynayaa daynkii kolley waxna waa la guday waxna waa jiraan laakiin waxqabadka la qabtay oo la muujiyey waa wax ilaahay loogu xamdinaqay insha allahu biidnillaahi kariim waxaynu rabnaa u baahannahay ilaahay idankiis inaynu la shaqeyno xildhibaanadeenna iyo guddoomiyaheenna iyo maamulkeenna degmada inaynu la shaqeyno biyaha iyo isuduwaha gobolka
inay noo fureen kalfadhigii 15aad intay shaqaynayeen waana ku mahadsan yihiin waana dhegaysanay warbixintoodii wixii hadda karaamkooda ay qabteen waa wixii loo igmaday waa ku mahadsan yihiin waana ku boorinaynaa wixii ka dhimana haddee waxaanu leenahay hawlka madaala waa weli waxaa wada dadkuna haddee waa ku khasban yihiin inay garba u yihiin maamulkooda waxaan leeyahay mid guddoomiyuhu waa mahadsan yahay wax badan buu inoo sheegay hadda waagi meesha lagaa dooranayana wax badan baa sheegtay inaad qabanayso wax badanna hadda waa iftiimisay wax badanna waa kuu dhiman yihiin waa mahadsan tahay waxqabashooyinkana hadda waa wax bulshadu qabatay oo aad garba u tihiin iyo wax idinka laydinka rabo marka waxaan leenahay sii wada wadooyinka waa muhiim wadooyinka uu inoo sheegay guddoomiyuhu waa muhiim waxa weeye idinkuna hadda ishaara oo wixii aad maamul iyo dawlad ka keeni kaadhaana haddee waxa weeye u toog haya oo wixii laydinkala shaqayn karo hadday tahay xildhibaana muxuu ahaayey puntland iyo hadday tahay odayaal iyo hadday tahay wasiiro iyo kulliba haddee iyadana waxa weeye waan soo dhaweynaynaa iyo waqtigooda iyo meeshooda wixii kaloo magaalada looga baahiyay magaalada diyaar bay u tahay maamulkii aynu dooranay xisaabtankoodii iyo kalfadhigii oo ay furmaya oo ay soo qabanqaabiyeen oo waxa weeye uu mas-uul ka yahay isuduwaha iyo guddoomiyaha fulinta marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa arrintaa fiican oo ay noo soo jeediyeen oo ay waxa weeye ay keeneen iyo xisaabtanka ay ka hadleen iyo waxqabadka ay ka hadleen iyo wixii dameeya oo hadda insha allahu ay diyaarinayaan in aad baanu waxa weeye uga mahad celinaynaa annagu bilicda magaalada guri dhisa wax kama qaban karo laakiin bilicda magaalada waa soo celinay gudoomiye aan u sameynay gudoomisaan u sameynay baabuurkii waan raray qashinkii waan guray wadooyinkii waan xaaqnay laakiin guri dhisan annagu waxba kama qaban karo waan ognahay inuu qaldan yahay taas waa midda labaad oo annaga muhiimka noo ahay waa dhuxusha gudoomiyuhu waa orday ciidan waa waday waa warwareeg magaalada geeska lagu shidaya qurac qoyan baa la dhaafi hayn geed qalan baa la dhaafi hayn xoolii baa la xaalifiyey gogobii baa la saaray waxaa la saaray geedkii hoos oo dhan dhuurtii baa la soo jaray annagu taa dacwaanu ka nahay inaanu u tagno oo nala raaco oo taas aanu magaalada wareegno waxaanu ka nahay dhuxusha ay dadka shidaaya dacwaanu ka nahay khayr kale allah u sheego oo siiyo kalfadhiga degmada waa kalfadhiga 15 sidaan maqlayay kalfadhiyo hore waa joogay waxyaabaha aad baan u soo dhaweynayaa guddoomiyuhu sheegay oo waxqabadka haddana waxaan leeyahay meeshiina kasii wada walow tabarteenu ay daran tahay salaan kadib ilaah mahadle keen isugu keenay meesha waana soo dhaweynayaa furitaankan la furay kalfadhigii 15aad ee degmada waxaana uga mahad celinayaa intii ka qayb qaadatay wasaaradda arrimaha gudaha muqdisho uu joogo iyo maamulka degmadaba run ahaantii waxa weeye ka ciidan ahaan anagu shaqadayadu waa amni amniguna waa nolosha koowaad waana wax laga maarmaana runtii intii tabarteeda ah wixii magaranaysaay shaqo ah oo deegaanka looga baahan yahay waanu ka howlgallaa haddaan nahay booliiska iyo haddaan nahay guud ahaan macnaha ciidamada BMPF-ka anagoo iskaashanayna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in aan maanta aan idinkala soo qayb galno kalfadhigii 15aad ee golaha deegaanka ee Baargaal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxqabadkii halkan ee guddoomiyuhu ka akhriyay iyo waxqabadka hadda la qabanayo iyo barnaamijyada u degan iyo kalfadhigiina isagoodan ku furmaya wanaagsan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ka amni ahaan ciidan ahaan waxaan u nahay diyaar waxa halkaa ka soo baxa iyo waxa qabadkiina ayaa higsanaysaan iyo waxaad higsigiinu yahay in aan annaguna diyaar idinla nahay oo garbihiina nahay oo aan la garab taagannahay xoog iyo waxa weeye amni iyo wixii amnigeena ku hagaagayo diyaar ayaa idinla waxaan maleynayaa baarlamaanka hadda golaha deegaanka waxaan maleynayaa markii labaad oo 2015 mar la furayay oo inaan kasoo qayb galay iyo maanta inay wajiyo badan iyo higsi badan oo waxqabad badan oo maanta aan oleyn maanta yaalleen wax badan baa laga hadlay oo ah amni hadday noqoto xagga
deegaanka iyo hadday noqoto dhinac kastaba haddii aan amni jirinna waxaan malaynayaa inaan la qaban kareen oo kow horta waxa u ah amniga markii amni la helo oo amnigu sugnaado baa la helaa waxyaalaha kale oo horumarka ah ciidamo nooc walba oo hadday noqdaan bolice iyo hadday noqdaan BNBF ba waa idiin joogaanin diyaar bay idin leeyihiin har iyo habeenba hadday noqdaan xaafadaha guddida xaafadaha oo ugu hooseeya oo degmooyinka degmada waxaan rabaa amniga marka u horeysa horta amniga in ay wax kala shaqeeyaan ciidamada weliba ciidamada boliiska oo iyagu nooga sii dhuun daloolo oo buddhigi ah oo iyaga la-aantood aan waxba ayan fuli karin inay haddeerna aada iyo aada u shaqeynayaan oo sidii hore iyo dardartii ay xilliyadii hore ay ka wanaagsan yihiin baan hadda u arkaa kaliya waxay rabaan la shaqeyn in lala shaqeeyo oo meesha ay waxa ay qabtaan lagu dhiirigeliyo aada iyo aad baan u mahadcelinayaa guddoomiyaha iyo sida wanaagsan oo ciidanka hadda booliska ay macnaha uga go-an tahay inay degmada wax u qabtaanin iyo ciidanka laftigooda oo iyaguna shaqo wanaagsan haya oo laga maarmaana bulshaduna waxaan rajaynayaa inay dareemaan shaqada loo hayo oo waxa weeye lagu ixtiraamo oo waxa weeye lagu garab galo walaal kasta oo mas-uula ama qof kasta oo mas-uula meel joogay haddaan garab loo noqon oo lagu tabantaabay shaqada u hayo keliya wax ma qaban karo waxaan leeyahay garbaha isqabsada sida wanaagsan oo hadda way u socoto ugala sii dhawaada waxa weeye garbahana hala isqabsado ama amni ha noqoto ama dhinac kasta oo deegaan ha noqoto ama xaalufka deegaan ku socda ha noqoto intaas aan rabaa inaan hadalkay kusoo gaabiyo guddoomiyaha baana qaybiyey oo xaafadaha nagu qaybshay hawsha iyadana waa fushanay haddana dib baan usoo cusboonaysiin doonaa waan la shaqaynaynaa degmada iyo maamulkeeda insha allah